dhammaan guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ku-xigeenkiisa dhammaan guddiga dhaqaalaha wasiirka ganacsiga wasiir ku-xigeenka guddoomiyaha rugta ganacsiga dhammaan akhyaarta meesha fadhida qof walba mustawaha ay ku fadhido assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas ka bacdi annagu liiskaan hadda maanta kuma jirin guddoomiyuhu waana soo hilmaamay nin abwaan ahaa waxaa la yidhi geedahaas alla soo tirsho geedihii tiradoodii aa loo keenay wuxuu yidhi geedaa la soo tirshay markaasaa yaaq laga soo tegayo marka beerihii iyo xoolihii iyo kalluunkii haddaan lagu soo darin guddoomiye annagu qolooyinkeennaas maalin kalen kaa rabnaa inaan kula shirno taas ka bacdi waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celsho wasiirka ganacsiga oo cala alxaqiiqo markii uu xilka qabtay ilaa hadda inta ka dhaxle ganacsiga dalka wax weyn ku soo kordhiyey oo ilbaxnimo ah oo dhiirigelin ah oo wax soo saar ah aad iyo aadan si khaasa ugu mahad celinayaa waxaa kaloo rabaa wasiir qallooc oo asigana waa salaama salaan ka bacdi wasaaradda maaliyadda waxay u yeertay beeralayda Soomaaliyeed 4 bilood ka hor waxay dhaheen 100 milyan idin haynaa oo beeraha loogu talagalay 25 milyan ayaa lagula diriraa 75 milyan beeraha la geliyaa ilaa 4 bilood ilaa hadda wax akhbaar waa ka la'na waxaan rabnaa wasiir qalloocow kaalintii ay beeraha ku lahaayeen wasaaradda maaliyadda oo inaga ballan qaadeen oo noo sheegaan xoolihii inuu meel ku soo sheego waqtina noo qabto haddii la waayana uu noo sheego aaduu u mahadsan yahay waxaa kaloo rabaa beeraha iyo xoolaha waxay ka mid yihiin waxyaalaha farakutiriska oo ka badbaaday coronavirus in yar oo beeraha maaragtay daadad iyo maaragtay fatahaad yar meelo yar galaan maahayna inta kale waxaan aad ugu faraxsanahay xilli badan inay soo samreen beeraha iyo xoolaha laakiin maanta fursaddii ugu weyneed ay maanta rajaynayaan inay helaan sida aad ogtihiin waddanka sidii burburka ugu dhacay waxaa la waayay maraakiib toosa oo waddamada badeecada la geeyo toos u geynaysa meel walba transit iyo dhibaato iyo khasaaran kala kulannay hadda waxaa la helay oo guddoomiyaha jambarka oo maaragtay maalmahan uu ka shaqaynayay markab toos xoolaha iyo qudaarta beeraha ka soo baxday mooska iyo kulli sacuudiga u geynaya oo 7 maalmood 6 maalmood u soconaya bil walbana 2 jeer imaanaya markabkaasaa yimid xoolihii waa soo socdaan waa dhoofayaan beerihii maaragtay waa badbaadeen ayaguna waa dhoofayaan laakiin nasiib darro dawladdeena sharafta badanna weli wax ay beera u qabatay iska daaye xataa idaacadaha beeraha kuma soo qaato waxaan maqli jirnay markii aan hurdada ka kacno beeraha xoolaha beeraha iyadoo lagu heesaan maqli jirnay dawladda xasan cali khayrana waa u sheegay markuu ra'iisul wasaaraha u ahay dawladdan xataa waxay nooga bakhiishay inay beeraha xayeysiin iyo dhiirigelin u samaydo oo ay ku faanto waxa dalkeeda ka soo baxaya oo dhoofaya oo dadkeedu cunaya inay maal geliso iska dhaaf inay abni u samayso iska dhaaf aad iyo aadan uga xumahay waxaan aad u maaragtay u rajaynayaa guddoomiyaha dhaqaalaha maantay waa naga soo tegay xataa bankiga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga horumarinta kuma soo darin banuugta waxa weeye bankiga kaliya oo karoonuhu markuu dhacay amar ku bixiya beeralayda Soomaaliyeed inay wax soo saarka kordhiyaan oo cunno soo saaraan oo $1 milyan oo korsaar la'aan oo sidaqaa siiyey waa bankiga Agrban banki la yiraahdo way marka guddoomiye halkan kuma aadan soo qorin waxaan kuu sheegaa waxa taalla oo ugu tala galnay ilaahay waa naga waday karoonihii 280 kun oo tan oo digir iyo galley iyo masago iyo sisin ah oo la soo saaray cabsi karoona laga qabo dartood beeraha diyaar ku ah waxaan rabnaa in maaragtay dawladdu ku faanto waxaan rabnaa in rugta ganacsiga Soomaaliyeed ku faanto iyo wasiirka ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga ay ku faanto nagama mooraysiin waana dayacdeen soo dhawaada haddii ilaahay karo si khaadsan oo la shira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu